wasiirka Maxamed Kaahin iyo Muuse Biixi waxay iyo SNMT kalaba waxay buugaag habeen walba noogu yeedhaan oo kaga qayb galnaa in Islam ka talowday dulmi iyo tacaddi iyo khaladaad laga galay ummadii deegaankan deganeed maantana iyagu xukunkii ahaya oo garwadeen ka ah dulmigi waa sidii buu taagan yahay waxa leeyahay bishaaro kaliya ma xidhna horta shan mas'uuliyiin u naqaano ayaa bishaaro la xidhan madaxweyne shanta wasiir iyo bishaaro ba horta inaad soo deystaan ka codsanayna waxaan madaxweyne waxaan ku weydiin lahaa horta meedna xoreynaysa sibsoodna xoreysanaysa waxaan leenahay bishaaro xaq darro ayay ku xidhan tahay bishaaro xoriyadeedii ha loo celiyo waxaan leeyahay xukuumadda waxa tiin ma xishootaan horta xishood idinku hadhay oo maanta leeyahay xishood baa xukuumaddaas way xishootaa haba yaraatay ma jirto madaxweynaha waxaan u sheegayaa madaxweyne markii lagu soo dooranayay amba markii aynu kaambeynka ku jirnay waxaad ku soo ololeysay in cadaaladdu sarreyn doonto maanta waxaad moodaa in cadaaladda aad u hooseyso madaxweyne cadaaladda aad u eeg marka koowaad waxaanu baaq dheer ku sheegaynaa in suxufiyadaas ay hesho xorriyadeedii oo ay cadaalad hesho oo la meeraysiga iyo marba celcelintan marba dib loo celinayo la oranayo waxaa la diyaarinayaa kiiskeedii sidii la baarayo dil qof geystay oo kale laga daayo qodobka labaad waxa weeye waxaan halkan fariin u marinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne waxaad ka mid ahayd inkastoo aad foolaadkii ahayn saraakiishii SNM maantana ilaahay wax kugu sameeyay adigoo madaxweynaha haddana weli dhiiladii iyo qayladii shalayto aad ka dagaalantay iyo maatadii tiifiyada ka cadaadarada ka qaylinaysa way jirtaa marka mudane madaxweyne waxaan ku weydiin lahaa horta meedna xoreynaysa sibsoodna xoreysanaysa qodobka saddexaadna waxaan ka hadlayaa guddida cadaaladda waxaa leeyahay idinka cadaaladda waddanka gacanta ku haya booska waddanka u joogtaan ma aha boos shaqo iyo mushaar waa booskii cadaaladda ifii aakhira waa la kula xisaabtamayaa marka waxaan leeyahay naf magac weyday ma fiicnaha weyday warbi waaye iska daaya cadaalad darrada iyo ummadda u cadaalad sameeya oo ummadda waddankeeda nacsiinna waxaan ugu horreyn cambaaraynaynaa xadhigga bishaaro baanday oo xadhiggeeda loo maray sifa sharci darro ah markii la soo qabanayay waxay muddo 3 bilood ku dhow ay ku xidhan tahay xabsiga tii oo aan wax kiisa lagu soo oogin waxaan leenahay bishaaro xaq darro ayay ku xidhan tahay bishaaro xoriyadeedii ha loo celiyo waxaan leeyahay xukuumadda xabsiga siyaasiga ku jirta bishaar waxaad ku caanamaasheen oo aad ku curateen caburinta iyo cagajuleynta cabsigelinta dhalinyarada iyo saxaafadda madaxa bannaan ugu dambeyntii la hadli maayo anuu xukuumadda xabsiga siyaasiga ku jirta waxaan la hadlayaa bahda garsoorka iyo cadaaladda waxaan leeyahay bishaaro xaqida hesho bishaaro xoriyadeedii hesho laba qodob baan anigu rabaa inaan idhaahdo xukuumaddan muddaxileedkeedii dhammaaday ee marmarsiyaa ka dhiganaysa inay hablaha jeelka ku guraan iyagoo wax dambiyana u haysan waxaan leeyahay xukuumadda waxa tiin ma xishootaan horta xishood idinku hadhay oo maanta leeyahay xishood baa xukuumaddaas way xishootaa haba yaraatay ma jirto bishaaro cali baande xadhiggeeda 2 bilooda waxaa looga aamusnaa dadka badankiisa uga aamusnaayeen iyagoo ku xeerinaya hooyadeed iyo qoyskeeda oo wasiir Maxamed Kaahin u ballan qaaday inuu soo deyn doono haddii alla idmo ayaa looga aamusnaa wasiir Maxamed Kaahin bishaaro cali baande mar waa awowgeed marna waa abtig mar waa awowgeed mar hooyadeed buu abtuuyi marna waa wasiirka xukuumadda ku matala wasiir waxaan ku leeyahay adiga iyo wasiirada kale deegaanka xukuumadda ku matala waa ceeb iyo cambaar idinkeeda duntaala xadhigga inantaa 2 bilood ay ku xidhan tahay saldhigga dhexe ee magaalada Hargeysa xadhigga qofka la xidho iyo dembiga waxa horeeya in dembiga la horhelo 2 bilood waxa loo raadinayaa inantaa dembigii lagu xukumi lahaa ee maxkamad lagu geyn lahaa oo kolba loo soo qaadanaya rumaan aan sharci ahayn waxaanu leenahay war ka daaya sidii saxda ahayd maaha xeerkaas waa xeerkii dugaagta iyo kaymaha oo dugaaga iyo kaymaha ayaa nibinku ku xoog weyn yahay ku taagsada qof aan dembi lahayn in maalinba sidaa loo celceliyaana waxay muujinaysaa in xeerkii dugaagta dalka lagu maamulayo waxaan leeyahay bishaaro cali baande xadhiggeedu xaq maaha oo sharci maaha oo dembi ma laha oo haddii ay dembi leedahay 2 bilood xeer iyo kiis looma raadiyeen ee waa la xukumi lahaa wasiirka Maxamed Kaahin iyo Muuse Biixi waxay iyo SNMT kalaba waxay buugaag habeen walba noogu yeedhaan oo kaga qayb galnaa in Islam ka talowday dulmi iyo tacaddi iyo khaladaad laga galay ummadii deegaankan deganeed maantana iyagu xukunkii ahaya oo garwadeen ka ah dulmigi waa sidii buu taagan yahay waxaan leeyahay waxaan u arkaa xukuumadda muddo kordhinta ku joogtaa
inay u muuqato oo ay leedahay nin qoyani biyees kama dhowro oo nin qoyani biyees kama dhowro si fiican bay dadku u fahmayaan ugu dambeyn waxaan ku soo gabagabeynayaa mushaare cali baande xadhigeedu waa dembi waa gef waayo inay 2 bilood lagu dhex jiidjiidto saldhigoo maalin hooyadeed waxay caddayso sheegtay xataa inay qarisay oo asturtay dhaawacyo iyo nabarro soo gaadhay inantaa si aan xadhigga loogu adkayn iyadoo intaasoo dhan ummadda ka hortaagneed in tacadiyada noocaasi ku dhaceen ay qarisay haddana in ay xidhnaato ilaa maanta waa dembi waxaan leeyahay dee ummaddan u malayn maayo inaad ugu tala gashay inaad cod dambe u soo doonataane sanadna uu hadhaye waar bilaa calaykum ka daayaan idin leeyahay mudane madaxweyne sidaynu ogsoonnahay waxaa dalka 2 bilood ku xayiran muwaadin u dhashay dalkan Soomaaliland wariye Bashaare Cali Maxamed Diiriye Bashaare waxay u xaniban tahay iyo waxay u xiran tahay xataa aanu garamayno shacabkana uma idaan soo bandhigin nalamadaydan wadaagin waxaan u aragnaa muwaadin xor ah oo loo samaynayo dembi muwaadin aan dembi lahayn oo dembi loo samaynayo 2 bilood bay Bashaare u xiran tahay xukuumadda wax alla waxay ku xiran tahayna ma sheegin meel walba waxa laga taagan yahay free Bashaare la soo daayo Bashaare oo kaliya ma xidna horta dadka deegaanka ay Bashaare ka soo jeedo iyo bulshada gobolada bariga ba haddaan idhaahdo waxa leeyahay Bashaare oo kaliya ma xidna horta 5 mas'uuliyiin u naqaano ayaa Bashaare la xidhan madaxweyne 5 wasiir iyo Bashaare ba horta inay soo deystaan ka codsanayna inta kadib Bashaare waa muwaadin Soomaaliland u dhalatay dalkeeda jecel hadda oo ay xabsiga ku sugan tahay qof kasta oo soo booqday iyo qof kasta oo tagay wuxuu arkaya Bashaare inay gacanta calanka Soomaaliland gacanta ku xiran tahay qof calanka Soomaaliland gacanta ku xiran oo maxbuus oo dalkiisa maxbuus ku ah sababu maxbuus u yahayna aanay jirin wuxuu xiran yahay wax xaq darro iyo gardarro xariga Bashaare waa gaf iyo meel ka dhac waxaanu arkaa in lagu socdo wasiir Maxamed Kaahin Bashaare awowgeed baa tay 2 jeer bad Bashaare awow tahay wasiirkeedii baa tahay matalaadeedii baa tahay maanta in Bashaare lagu bariyo anigu waxaan arkaa liidnimo horena waa tii loo yiri halibaa harkaysa ma godlatee haday wax kale jiraan wasiir noo sheeg haddii kalena Bashaare aday ku xidhantay iyo madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhamaaday haddii inantaasi loo hayo wax kiisa may qaadateen muddo 2 bilooda kiiska dilka ayaa muddo 2 bilood qaadan waxay qortay baa lagu haystaa haddii aad wax ku haysataan wixii ay qortay waaba wax qoranba laakiin in la soo celceliyo oo maxkamadda lagu soo celceliyaa waa cadaalad darro aad baan u dhaliilaynaa madaxweynaha waxaan u sheegayaa madaxweyne markii lagu soo dooranayay amba markii aynu kaambeynka ku jirnay waxaad ku soo ololeysay cadaaladdu sarreyn doonto maanta waxaad moodaa inay cadaaladda aad u hooseyso madaxweyne cadaaladda aad u eeg aadan xaaji calina waxaan farayaa gudoomiye nin yar oo dhalinyaro tahay inaad cadaaladda ilaaliso oo inantaasi 2 bilood baa wali wax qoran way qoran yihiin wax lagu eedeynay Bashaare haddana gudoomiye waad aragtaa 2 bilood bay maraysaa garsoorkaaguna inuu dhaliil yeesho maaha taliye daba galana waxaan leeyahay taliye xagga bilayska waxaad noo sheegtay ummadda Soomaaliland u sheegtay inaad bilays tayala noo dhisayso laakiin wali saldhigyadii waxa jooga odayaashii waaweynaa anaga Cabdirasaaq ku aqliyeystay marka taliye waxaan ku leeyahay bal aad u eeg taariikhda nin walba qori doonta